حوالي قرص كانوا بيحجر قدام ما يصير يقول أبتع أنا سنة كان مقابل الآن لسنه من أين كاسم بقبيكي أرسوان تعفي وحان سبا هكين كده هيكتو ده محمد عدو إنه يشوف في السوار سبا ما يسافر دكتور محمد عدو انت نقا يسعى تعليم واحد انت نقا يسعى تعليم واحد markay kuu socoto nin ogaadeen haata min cidda haata waa jirtaa odayaasha waxay dhaheen saduuqi horo labada cidina ay hortognaag ahaan jireen waa jirta waxa weynoo hadda kumaanoo sii dhacay markii xogaa garamka fahmata marka walaalow saas tahay markay saa tahay ninka aan ila habar garan layskugu yaabtaa intaasoo sano ama maqaabul aan dhisayni ama maxamed sugar aan dhisayni markaan dhisayni toleeba waxyaale badan waxaan bal la kulanay hadal xun oo jaaysta waa calooshoodi ciyaarka aw waa ku daraysiyaasha aw waa ku daraysanay kanayna kayna waa dheeraysa waxaa kaloo dhacday maxamed cadow intaaga warramaa dadka ma taqaanin adiga intaan dadka badu waa u taqaanin oo maqaabul iyo geri waa isdhaqaana waa isdhaleen adigoo ilaahay meesha kusoo geli allah kusoo geliyey meeroo dugtooda wiil geri adoo dhan soo lumin ayaa ku imaan doonta kuwa hadda hadlaya ku ka mid oo meesha fadhiyoo yaqaanin wiil meesha taaganoo sakan irinha anamay kan waa geli kuwa kala maqaabule isay garee fadhiyo alaaka kufeeyahad oo ballanka hallo alaanka bixi doona inuu geli doono kaasaa dhacday oo dhaxdoona waana ku qaban doontaa kaasay iska fi waxaa kaloo ku leeyahay annaga tuuraha aan goosanay sanadkan sanadooda aan goosanay وترسل أقوسنا وترسل أقوسنا مو مسلم أقوسنا إسلام أقوسنا وهي عليه قابل الحمد حتى قوم كأبد عليه حتى فرنا وبس هذه هاي ما تبغى ما يوم سوق ولا رأيتي وعلو كامل علو وصل مني أنا كم قاعد أقول أسكر مني ماشي في الوقت سكرين أفكر تقدرين وهذه كلها قطوة هذه الأصل والله سيارة وهذه كلها قطوة ولا أروح أنا فيه يتحقق إلى المقصود إلى وأنا كنت أنا وأنا كنت معي وأنا كنت أنا يعلها كاملة ما شاء الله سوباري ما كان واحد تيجي كمان يا كمان سوباري واحد شيخ فرقي كمان كمان Dari ansar. وارد أنا أصلا فيها تقول يومتين ما أنتهى ولا أهم أيوة نقطة هي واحد أنا أفكر كمصاري هذه إلى تقول لي أنا أتفرج بس معنا تقول لي هذا توقع سنين ما تقول تحس أنا إلى تقول لي ما كان كان له بتبها نجي حفيز قالوا في الأولياء في حاجة سكة أو أهل كون ما تقول هاي هو شيء غلط فيا واحد يستفيد صدق سنواي وقال كل حاجة قد يعينا نوع سكر واحد ورث وما لا يمكن هذا كامل أنا طالب
أنت شم خلاص صديق مقالة ما قصي كذا نقول ما حوالي نعم في الجراحي يقول قلت تكون أصبعي أنت مقالة ما يحتاج أسمع فيني ما مثلا كان هذه إن عن كبيرة تفصل أو تقول وجعلنا الله كان يصيب كويس لا أنا ربع ساعة أنت تنبهها كأنك لو كنت لو بس من قرية ما في ولا جوات جوات dadku waa siyaasiyahay wadamo dheeraa la kala jiraa ilaahay maxamed isu soo celin lahayd hana siiyo ilaahay idinka tabarcad baa dadka kala elisay dadka meeshan 3 boqoloo waxaa meeshan soo joogsan lahayd waad arkaysa gabdhaha yar iyo wiilasha dhalinyarada baa meesha jooga waxna walba neef baa ka kala kuurkil ah ilaa qaxootiyaa la jira allaha noo soo celin maxamadaas allaha la siiyo ilaahay idinka sayrkaas ilaahay ka rajaynaya wax hada loo sii qiimo laha markuu waa dhan yahay ruuraha waa halka wiilasha odayaasha ay sheegeen saasay arrinta ku dhan tahay assalaamu calaykum waraxmatullahi aniga waxay ma gudraa wali la maxamed cabdiraxmaan cumar ninka garanaya ibrahim abu umar ilmaayaan mataanka marka waxaan idin sheegayaa wixii aan ku hadli lahay duqaydii iyo gabdhihii iyo foogsenba hal yar oo laga tagan gudaraya waxaa dhacday 5 sano hadda soo dhaafay nin majimba ayaa noo soo galo ogaadeen oo lagu dhibaatadana gaartay waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo sheegay xereg baan ku mutaysanay kuma anaga xabadii aanidni waxay noqotay in anaga noo soo noqoto oo sababku noo dhacay xabadda inoo noqotay aabe u tolo nasoo salaantay oo maawil waxaan idinka codsanaa culuw maxaa dhihi jiray cadow waa la dooranayaa cadow waa la dooranayaa laakiin kuwii xabadda ugu soo noqota aniga inay noqonaa idinka codsanaa marka boqolkiiba aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida aad u qaateen musharaxa aan wadano waad ku mahadsantihiin insha allahu tacaala calaacal badan baa meeshan isaa maqlaya ayaa ka dhacay duqa adeerkay waxyaalo badan buu sheegay horta waddanka waa degantihiin dowladda waa ka tihiin waxaan u malaynaa hadda la boqol oo marna inigu baa qaatiin marna ciddan u baa qaataa meel hadda dowladda hoosa aad kaga maqantihiin malaha insha allahu tacaala calaacal badan baa yeeli waxaan u malaynaa nin MP ah oo la xiray oo ciddan loo xiray darteed baqaal baa ka jira soo ma ogidiin arrintaa ma ogtiin horto nin maqaablo MP oo la xiray oo ciddan darteed loo xiray soo ma jiro waa dhakalow marka walaalayaal annagii inigoo wada dhalanay jiraanna waa nahay dad annagaan isu xignaa sidii gabadha ay sheegtay motooraan isla cabbaynaa meel walbaan isla gelaynaa erigaas ku soo qabanaynaa ninka martida ee ninka kaluu ku hooyani aad iyo aad baan isu naqaanaa walaalayaal reer tuula xagar salaan kalgacal baan asalaamu calaykum waxaan rabaa inaan aad iyo aad idinkaga mahadceliyo sida wanaagsan ee ehelnimada iyo tolnimada ku jirta aad noo soo dhawaysan aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa dhalyaan nahay dilba wada dhashaan nahay dadaan isqori karin baan daris baana nahay deegaanna waan wadagnaa wax badan baad cabasho jeediseen dad aad doorateen baad ka cabateen codkii aad u rideen baad sheegteen in uu xabad idinku noqotay idinku soo laabatay adeerkay cabbaas hadalkiisana aad baan u dhuuxay dareen aad u weynna way igu dhaliyey
dadku soo doortay iyo dadan ku soo dooraninba mar haddaad madax noqoto mas-uuliyadda ilaahay agtiisa kaa saaran waxaa weeyaan inaad u wada adeegto soo maaha inaad u wada adeegto maanta dadkiina waad ii horteen waan idiin adeegayaa haddii ilaahay ii kasto xilkaasi inaan qabto waad i dhasheen waan wada dhalannay waan idiin adeegayaa oo si lilaahiya baan idinkuga adeegayaa oo daacadnimo ah haddii ilaahay imakaniyo inaan xilkaasi qabto ilaahay bay ku xiran tahay ilaahay bay la tahay haddii maanta halkan aad dhihi lahaydeen kuma dooranayna iyo ballan horaan qaadnay haddana waajib baa isaaran haddii aan kursigaa helo yaa isaarnaan lahaa in aan idin adeego wax la iska baryaya maaha qofkii garanaya mas-uuliyadda iyo xilka yacni muhiimadda ay leedahay iyo waxa mataqaanaa ee lagu mutaysan karo ilaahay agtiisa wuu dareemi karaa xilku xil sahlan ma aha walaalayaal aniga wax aan qiiro ahayn iyo qadiyad ummaddaada wax u qaba ah uma soo istaagin ilaahay baa igu haddaan magac rabo meesha aan joogaan ku haysta manfacana mid ka badan middan siyaasadda yaan ku haystay meesha aan joogo dhibaatada ummaddayda haysato yaan u soo istaagay in wixii khibrad aan leeyahay aan wax uga qabto haddii ilaahay yidhaahdo horta taa ogaada waxaa waaye hadal haan ma buuxsho ficil baa wax tara sidaa aad iigu hurteen sida aad codkiina iigu hurteen oo walaaltinimada iyo dhalyarnimada ku dheehan tahay unbaan idinkugu gudi anigana insha allahu tacaala waa wax mataqaanaa ee laga yaxyaxo in 60 sano kadib markii ay Kenya xorriyadda qaadatay biyo afka loo cabo ay ummad ka sheekaynayso inaysan haysanin oo ka cabanayso aas-aaska nolosha biyo weeyaan marka haddii ilaahay yidhaahdo annagoo oo mataqaanaa idinka idinla tashanayno ummadda Wajeer South guud ahaanba ee aan u soo hawoonnay in aan mataqaanaa ee wax alla wixii aan kala qaban karna ee karaankeenna dhibaatooyinka in aan u xallino oo hoggaan wanaagsan u samayno oo haddana waxaa la hilmaamay maalmaha mataqaana waxaa la hilmaamay qofka xildhibaanka loo dooranayo inuu qayb ka mid ah mas-uuliyadda saaran ay tahay inuu dadkiisa u doodo codkaaga aad mataqaanaa ee dadkaaga ku anfacdo suuriyaan iyo ciraaqiyiin iyo naajeeriyaan dhib haysto iyo suudaaniis haddii aan u doodi jiray oo aan uga doodi jiray idaacadaha iyo telefishinada adduunka dadkaygii aan ka dhashay inaan u doodi waayo ma dhacayso insha allahu tacaala waxaan rabnaa in aan cad saarno waa cusub oo aan helno 60 sano way nagu filan tahay kuwa badan oo iga horreeya oo wax badan oo wanaagsan qabtay baa jiro nin walba wax wanaagsan uu lahaa laakiin dadku weli dhibaatooyin ba haysto oo qaarkood aasaaska nolosha ah insha allah waxaan rabnaa inaan u jeesanno wixii hadda ka dambeeyo hoggaamin waa cusub u baryey oo dadka si hoose looga warqabo dhegta loo raariciyo dhegta maaragta loo furo cid la quursanaya aysan jirin cid la dayalsanaya aysan jirin cid ku dooratay iyo cid aan ku dooraninba xaq waxay lahayd meesheeda loogu geeyo insha allahu tacaala ilaahayna ha nala garab galo